وبركاته. daawadayaasha qiimaha badan oo aniga Cabdirashiid Cabdullaahi Diiriye waxaan idin soo jeedin doonaa koorso ku saabsan horumarinta naftaada. Saan hore inku balan qaadaybo koorsadan oo in muddo socon doonto waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah hanka sare. Waxaa la yiraahdaa han sare dadka xaguu u kala jooga hankooda iyo ma qaybsamo hanka sare mise ma qaybsamo iyo qodobka saddexaad ee afraad oo wali ah oo kaga hadli doono sidee qofka hansara ku yeelan kara. Haddaan u gudo galno koorsada ama ciwaanka koowaad ee maanta soo qaadanay hanka sare. Hanka sare waxaa la yiraahdaa qofka oo u dulqaata caqabad kasta ee naftiisa ka hor imaada ilaa uu ka gaarayo yoolka uu higsanayo. Hanka sare uu qaybsamaa laba qaybood baan loo qaybiyaa. Midda koowaad oo ah qofka mid uu ku dhasho. qofka hanka uu ku dhashaa qofna waa mid uu kasbado. hanka sare dadka wuxuu u kala joogaa ilaa 4 heer. heerka koowaad oo ah qof hankiisu hooseeyo oo gudan waayay waajibaadka naftiisa saarnaa. midda labaad oo ah qof hankiisu meel lixaad yahay kaas oo ah qofka kaliya ka soo baxa waajibaadka saaran naftiisa ee aan wax kale soo kordhin. qodobka saddexaad oo ah qof hankiisu sareeyo laakiin aan garanin wadadii uu mari lahaa si uu xaqiijiyo yoolka iyo hanka uu leeyahay ee uu doonayo inuu gaaro. midda afraad oo ah qof hankiisu meel sare gaaray kaasoo halku dhig ka dhigtay dhowr sano aan ku noolaado nolol dadka badankood aysan jeclaan si mustaqbalkayga inta ka dhiman aan ugu noolaado nolol dadka badankood aysan gaari karin. waxaana ka rabnaa dhammaan dhalinyarada in hankooda sare u qaadaan ay ku saleeyaan qodobkii u dambeeyay aan sheegnay. hanka sare sidee qofku han sare ku yeelan karaa? waxaan soo qaadanaynaa ilaa 5 qodob oo qofku han sare uu ku yeelan karo. qodobka koowaad weeye aamin naftaada. aamin naftaada macnaheedu waxaa waaye in qofku uu aamino in wax kasta uu qaban karo, in meel kasta uu gaari karo, wax kastana uu samayn karo. taas hadduu qofku aamino waxaa keenaysaa in qofku hankiisa uu sare u qaado. qodobka labaad waxaa weeye ha ku qancin meel hoose. waa inaadan ku qancin meel hoose. waa in naftaada aad u sheegtaa inaad gaari karto meel kasta ee uu gaaray qof bini aadam ah, darajo kasta uu gaaray qof bini aadam ah iyo heer kasta ee uu nolosha gaaray. ilaa markii laga reebo darajada nebinimo ee ah mid Ilaahay uu siiyo shakhsigii oo asaga u garto. qodobka saddexaad ee aan soo qaadayna wuxuu yahay hawl kasta aad qabanayso oo qabo si hagar la'aan. macnaheedu waa maxay? waa in hawl kasta markaad qabanayso aad u qabataa sida ugu wanaagsan. taas waxay keenaysaa in shakhsiyadaada aad aaminto inaad leedahay tayo sare oo aad qaban karto wax kasta. taasoo keenaysa in hankaada sare u qaado. qodobka afraad ee aan ku soo qaadayno oo qofku hankiisa sare u qaadayo waxaa waaye hankaaga ka sare mari hanka xayawaanka. macnaheedu waa maxay? xayawaanku wuxuu ka fikiraa kaliya caloosha buuxinteeda iyo farjiga qabtirkiisa. adiga waxaad tahay qof bini aadan ah oo dunidan la keenay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay walaqad karamnaa bani aadam. waxaa laga rabaa marka in hankaaga aad sare u qaado, aakhiradaada u shaqaysato, adduunkana in aad wakiil ka tahay oo wax kasta la rabo inaad ka bedesho inaad aamintaa lagaa baahay hankaada oo halkaas gaarsiisan yahay. qodobka ugu dambeeya ee ah sidee qofku hankiisa sare u qaadi kara waxaa weeye Allah subxaanahu wa ta'aala inaad tala saarato. markasta aad u dhaqaaqdo inaad hawl qabato Allah subxaanahu wa ta'aala tala saaro markii aad go'aan ku gaarto inaad hawsha iyada aad qabanayso. kuna dadaal markasta. waad ku mahadsantahay daawashada video.